السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسر دواد برنامجك وآدم يستير برنامجك النيهوري سويالك سياسة ديدا الصومالية دوحي موشي هدية شارين دولة أفريكانكو سيبا أفريكا دا مدو سحارها كونفورتكا إني هدية شارو إحدان دلك إيتوبيا مركة تمادو صوماليا iyadoo la isku dayay 1947 in Soomaaliya laga hor istaago soo dhaweyntii iyo martiqaadkii shirweynihii Afrika oo ahaa malaha shirweynihii 11aad iyadoo caqabado badan la hordhigay Soomaaliya iyadoo haddana lagu qabtay ilaa 10 shir oo kaas la mid ah dawlado Afrikaana oo ka itaal yar Soomaaliya dhaqaale ahaan iyo siyaasad iyo dhan arrimaba bulsho balse Soomaaliya ay ku adkaysatay shirweynaha soo dhaweyntiisii ayna qaban qaabisay wuuna ahaa mid ka mid ah shirweynayaashii midowga Afrika oo ugu macnihi cadcada 1975 ay Soomaaliya isku dayday in ay Security Council-ka xogeeyaysa guud u sharaxdo Cumar Carte Qaalib balse laga hor istaagay arrinkaas isaga iyadoo loo hiiliyay dalka Tanzania dhammaan dhacdooyinkaas daawada waxay ku muujinayaan in had iyo jeer markay timaado kaalinta Soomaaliya dalalka Afrikada madow ay isku dayaan inay macnihi nuqsaamin gaarsiiyaan Ethiopiana ay arrinkaas isaga kaalin mug leh ka ciyaarto iyadoo mar ahaanta ay tahay Soomaaliya dalka macnihi taageeri jiray gobonamadoonka Afrika oo ururo gobonamadoon oo dhowr lagu tababari jiray Soomaaliya ciidamadooda taageero siyaasadeed iyo dhaqaalena loo filin jiray dalalkaas waxaa ka mid ahaa ay Soomaaliya kaalin ka geysatay xoreyntooda Zimbabwe iyo Mozambique iyo Angola haddana had iyo jeer waxay xigsan jireen dhanka Ethiopia arrimahaas marka dib loogu noqdo iyo qaar kale oo u baahan macnihi in lagu sii dheeraado waxay ku muujinayaan had iyo jeer isbahaysiga dhexmara Ethiopia iyo dalalka Afrikaanka si macnihi loo xakameeyo awoodda Soomaaliya arrinka iyo waaqaca maanta jirana uu yahay mid aan meel cidla ka iman balse ka duulaya arrimahaas iyaga iyo dhaqankaas siyaasadeed iyo sooyaalkaas tilmaaman saas awgeedna loo baahan yahay Soomaaliya inay ka tabaabushaysato oo wixii hadda soo socda yeelato saaxiibo Afrikaana iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya looga baahan yahay inay jeexdo siyaasad arrimo dibadeed oo qoto dheer leh oo muuqaal istiraatiijiga ku fadhida daawada dhageyste waa anigoo Khalid Xasan Yuusuf intaan ku kulmay